Codka qaaqaac oo laga dhex maqlayo ciidanka wuxuu ka wanaagsan yahay kun nin oo fardoolay ah. Waxaan joognaa sanadkii 9aad ee Hijriga, waana sanadka ay muslimiinta ku magacaabaan sanadkii wufuudda. Magaalada Madiina iyaduna waxay soo dhaweynaysaa wafdiyadaas uga imaanayo daafaha jasiiradda Carabta si islaamnimadooda ay ugu sheegaan nebiga naxariista Muxamed bin Cabdillaah sallallahu calayhi wasallam. Wafdiyadii ugu soo horeeyeyna waxaa ka mid ahaa wafdi lagu magacaabo reer Bani Tamiim. Waxay yimaadeen iyagoo raba islaamnimo kadib waqti badan oo dagaal iyo orod ah. Waxay magaalada Madiina soo galeen iyagoo muslimiin ah oo hoggaansan, gacantana u fidinayo nebiga si ay ula mubaayacoodaan. Inta wafdigaas ay islaamayeen, danahoodana ay u sheeganayeen nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu si dhoola caddeyn leh u fiirinayay wiil la socday wafdigaas. Nebiga ayaa markaas weydiiyey magaciisa, wuxuuna ugu jawaabay wiilkii Al-Qacqaac ibnu Camr At-Tamiimi. Nebiga ayaa weydiiyey, maxaa kugu diyaarsan jihaadka Alle dartii ah? Wuxuu yidhi Qacqaac, daacada Alle iyo rasuulkiisa, iyo fardo iyo warmo. Nebigana wuxuu ku yidhi markaas, taas ayaaba ah yoolka. Laga soo bilaabo maalinkaas, Qacqaac wuxuu go'aansaday naftiisa iyo seeftiisaba inuu hadiyad uga dhigo jihaadka Alle dartii ah. Khaalid bin Waliid radiyallahu canhu markii uu ka soo dhammaaday dagaaladii riddada, isagoo aan weli nasan, ayaa waxaa u yimid amar ka socday Abuubakar oo markaas ahaa khaliifka muslimiinta. Wuxuu ku amray Khaalid inuu furto dhulka Ciraaq iyo in laga saaro gacanta boqortooyada Faris, dadkeedana in la soo geliyo diinta. Laakiinse ciidanka Khaalid ayaa markaas dabacsanaa, maadaama ay ka soo baxeen dagaaladii waaweynaa ay la galeen riddada. Qaar badan oo ka mid ahna ay ku shahiideen halkaas. Balse Khaalid wuxuu gurmad ka dalbaday Abuubakar. Khaliifka muslimiinta Abuubakar as-Siddiiq markii uu arkay fariinta uga timid Khaalid ayuu ka istaagay wixii uu hayay. Dadkii la joogayna wuxuu ku yidhi, Khaalid wuxuu dalbanayaa gurmad ee ku xoojiya Qacqaac ibnu Camr. Dadkii joogay meesha waxay ku noqotay layaab, waxayna dhaheen, Amiirul Mu'miniinow, hogaamiye ciidankiisa ay kala tageen, miyaa gurmad uga dhigaysaa hal nin? Abuubakar wuxuu yidhi markaas, haa. Codka Qacqaac oo laga dhex maqlayo ciidanka wuxuu ka wanaagsan yahay kun nin oo fardoolay ah. Ciidan oo Qacqaac ku jirana lagama adkaado. Khaalid isagoo hogaaminayo 10,000 oo askari ayaa wuxuu u jihaystay dhankii Ciraaq, waxaana garabkiisa ahaa Qacqaac oo uu khaliifka gurmad ahaan ugu soo diray. Waxay aadeen dhanka deegaanka Xafiir oo ah deegaan u dhow saxaraha. Halkaasna boqortooyada Faris waxaa u joogay nin lagu magacaabo Hormuz waxa uu ka mid ahaa hogaamiyeyaasha ugu xun marka la joogo la dhaqanka Carabta. Carabtana si xun ayay u necbaayeen. Khaalid markii uu tagay deegaanka wuxuu fariin u qoray Hormuz, wuxuuna ku yidhi sidaan, Islaam waa nabadgalaysaa, ama naftaada iyo qoomkaaga uu door magangeliyo. Jizyadana siiya muslimiinta adinkoo dulaysan. Haddii kale naftaada cidaan ahayn ha eedin. Aniga waxaan kuula imid rag geerida u jecel sida adinka u jeceshihiin nolosha. Hormuz markii uu arkay fariinta Khaalid ayuu asagana fariin u qoray boqorka Faris isagoo u sheegayo arrinka muslimiinta. Markaasna wuxuu diyaarsaday ciidankiisa, muslimiinta ayuuna uga hormaray dhanka biyaha. Khaalid markii uu tegay meesha, ciidankiisa ayuu amray alaabahooda inay geystaan meel uu asaga u dooray. Qaar ciidankii ka mid ah ayaa waxay dhaheen markaas, hogaamiye, cadowga waxay naga joogaan dhinaca biyaha, annaguna waxaan joognaa dhinaca kale. Waxaana ka baqaynaa inaan u dhimanno oon.
wuxuu yidhi khaalid, alaabtiina dhigta meesha idin amray, kadibna cadowgiina kula dagaalama biyaha. Labadii ciidan waxay isku diyaariyeen dagaal. Hormuz wuxuu soo hor istaagay ciidankiisa isagoo dhinaca midig dhigtay amiir ka tirsanaa qasriga boqortooyada. Hormuz wuxuu iska dhaadhiciyey haddii uu dilo khaalid 4 meelood hal meel inuu asaga helayo guusha. Sidoo kale wuxuu aaminsanaa arrinkaas inuusan weji ka weji ku suuragalayn, qasabna ay tahay inuu gaadmo ku dilo. Wuxuu diyaarsaday ciidan qaas ah si loo dilo khaalid. Hormuz wuxuu soo istaagay barxaddii dagaalka isagoo leh, Khaalidow ii soo bax. Hogaamiye Khaalid markii uu maqlay ayuu si toos ah u aaday isagoo aan ogeyn shirqoolka loo diyaariyey. Isagoo u degdegayo dhanka Hormuz ayaa waxaa geesaha kaga yimid raggii loo diyaariyey, iyagoo wato seefahooda rabana dilka Khaalid. Markaas ayuu Qacqac oo ahaa ninka gurmad ahaanta lagu soo diray Khaalid la sheegayna inuu u dhigmo 1000 nin. Markaas ayuu u soo baxay barxadda dagaalka isagoo ku leh Hormuz, cadowgii Allow waxaa ku yimid Qacqaac ibnu Camar. Markaasna Khaalid waxay isgacan qaadeen Hormuz. Ciidankii shirqoolka ahaana waxaa meel saaray oo edbiyey Qacqaac ibnu Camar iyo xoogaa ciidan uu watay. Ugu dambaynna baqtigooda waxaa lagu tuuray barxaddii dagaalka. Markaasna waxaa bilowday dagaal xooggan, jab xoogganna waxaa dusha loo saaray gaaladii Faris. Markii dagaalka uu dhammaaday, Khaalid wuxuu fiiriyey Qacqaac wuxuuna yidhi, Abuubakar isagaa nooga aqoon badan ragga. Run ayuu sheegay markii uu lahaa ciidan uu ku jiro Qacqaac lagama adkaado. Dimashq furashadeeda, inkastoo uusan Khaalid ahayn hogaamiyaha guud ee ciidanka, haddana wuxuu jeclaa inuu garabkiisa ka soo muuqdo Qacqaac. Dimashq xilligaas waxaa ku wareegsanaa dhufaysyo aad loo adkeeyey, sidoo kale waxaa ku wareegsanaa god weyn. Sidoo kale waxay lahayd 5 albaab oo laga galo. Waxaa la furi jiray subaxii, galabkiina waa la xiri jiray si loo adkeeyo amniga. Khaalid iyo saaxiibkiisa Qacqaac waxaa lagu qoray albaabka dhinaca qorax ka soo baxa, kaasoo ahaa midka ugu adag uguna awoodda badan. Go'doominta ay muslimiinta ku sameeyeen Dimashq waxay qaadatay 7 bilood. Muslimiintana waxay isweydiinayeen sida loo furan doono magaalada iyo xilliga la furanayo. Su'aashaasna waxaa uga jawaabay Khaalid bin Waliid iyo saaxiibkiisa Qacqaac ibnu Camar. Khaalid magaalada waxaa u joogay dad u keeno xogta. Maalin ayaa waxaa loo keenay xog ah in qasriga boqortooyada uu ku dhashay wiil, sidaas darteedna ilaaladii iyo ciidankii waxaa la isugu wacay xaflad. Khaalid wuxuu ka dhex arkay meeshaas fursad aad u weyn. Markaasna wuxuu samaystay jaranjarooyin xargo ah. Markii uu haweenka mugdiyoobay ayuu Khaalid ciidankiisa ku yidhi, waxaan fuulaynaa darbiyada, haddii aad maqashaan takbiirteenna, qayb idinka mid ah ha soo koraan derbiga, qaybta kalena ha ka soo galaan albaabka. Khaalid iyo Qacqaac iyo xoogaa ciidan ah ayaa koray derbiga, kadibna waxay laayeen ilaaladii joogtay albaabka. Sidaasna waxay ku furteen albaabkii. Ciidankii muslimiinta ahaa kor iyo hoos ayay ka soo galeen magaalada iyagoo takbiirsanayo. Taasna waxay ahayd furasho weyn. إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس